السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكو سو دوادا برامج كيني منطق يا محا عصب oo alaaba kala socon jirteen TV-ga caalamiga Samno News TV xarunta dhexaan ku leenahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa barnaamijkan alaaba la socodsiiya anoo Muna Axmed Cabdi Muna Mandeeqa haddaba barnaamijkan maanta waxa marti igu ah waa aboo weyn oo qaaliya oo si wacan aad wada garanaysaan waana Shabac Axmed Cali Dhuux een abwaan ugu horeyn ku soo dhawo barnaamijka iyo TV-ga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وهاي أنا هذا قرن إنسان أبوان كي سوماليات شبع أحمد علو حاذن تذكرين تاني قرن سوي قرن سا حصوب بقضي منا ماندق فد بقى شوت فيه أنا بقى شوي وأتا أبوان وما سنت هاي تين برامج كيني كده قلين بتاريخ نولد كاغا أقوان تاريخ نولد كده وحنا حل بانو هي ومدة الصومالية حلكي على هذا الوهن شيء دتك وعن كل شيء عيالك بو هول أما قولي بو هول يعني كل شيء كل سجال بقول صدقات إني أسد حدي أدار سنة في كوري أبرت خلت نيان كل شيء بو هول أقعد كجب حيدك سجى هو سلحة مركي دمنا حول بعض ما سقط أنا ساقط في ذلك يدك إمكان حل كيبان هيا سوقانت. أو كاغتي واتاي إن مدام حلك أدهيسيد متشران قبيو ما سوين بدن واتكترسي تاريخ ذي أو وكله. هذا هو متشران ويسكب بدين لكن ده هذا هو سلا مارسي سلا شايل كوكله حق دقنك يدين توكله يا سوق على كرا لكن ويفرق بدين واتاي أبوان إسكار كبرنا دي بواق لقر واتاي متشران وح بوجة أتكدي يعني سأوي أما أتكقرتين مدام حتتك أوها يحل أول وحنا كقري بوج ما هذا كقرينا بدل الله بس الوضع بنا كقرينا أنا جيونين أبوان سوماليات أو شوجا على هذا فرنسي كتير شرم كماشي لا كتير نجي يعني يوضيال كله ونقعوني بوجاس أنا قريني أو أنا كقريني بوجاس مجلس وحال هذا عرض كي شحذا سوقان الصوماليات أيال هذا بوجاس وعن كقرينا وعلو هذا مركي وقت هذا ودر أيش كذا يعني تاريخ ديسي سوقان ديسي Soomaalida islaan ka soo baraamurtay kitaab laga qoray waxa jirtay oo aan rabaa halkan inaan kaga faa'iideysto ama aan isku dul taago 10 sanadood ka hor aan malaynayo inay ahayd 2008 xilli aan malaynayo ayaa guriga Garowe ayaa gabadh haweeney qaaliyo oo deeqacul joog leeyahay ayaan ugu qorqoray suugaantii odayga iyadoo markaas ay igu tiri odagii baan buug ka diyaarinaya deeqa wixii aan haynay aabaa la xariisteena waan wada soconay adigu halka waan ugu qorqoray wixii aan hayay 10 sano ka hor bay ahayd dadkii ka caawinayay buuggaas la qorqorayay waxa kamid ahaa in loo leeyahay Axmed Macalin Jaamac oo abwaan weyn oo Soomaaliyeed la yaqaan Cabdirashiid Xaaji Axmed Lible oo abwaan weyn labadaan waa dhinteen ilaahay naxariistiisa ka waraabi waxaan ka xusuustaa dadkii ka caawinayay oo la qorqoriyay buugga gacan yaraha oo ahaa nin magaciisa la yiraahdo Maxamuud Muuse Cali waxa loo yaqaan caare dadka qaarna waxay u yaqaaniin gabal qariye labada oday way dhinteen Allah u naxariisto Axmed Macalin Jaamac iyo Cabdirashiid Xaaji Axmed Lible way dhinteen 10 sano waa waqti aad u dheer markii aan waayay buuggaas inuu soo baxo ama wax raad raaca oo odaygii leeyahay aniga muddo 3 sanadood ku loo buuggii ururinay waxaan u tagay Qabdaare waxaan u tagay Jigjiga waxaan u tagay Marqaan Weyne buu hoodle hadii ilaahay ku rooyahay caabud waaq iyo intaas geeyga Soomaaliya doctor dhamaan maray anoo taariikhdii odayga Cali Dhuux aadan raadinaya markii horena 60 waan hayay afartankii maqaan waan soo helay saan ku soo helayba teedna niman badan baa arinta waxay kala qabtay buugga waqti aad u dheer baan qoraynay
ofiska noo ururiya waxaa jooga nageeye wuxuu joogaa waddanka Jarmalka waa nin gobolada isugu dhashay abwaan weyn oo la yaqaan buuggaasi wuu tafiqiye tiran yahay ujeedadii aan kala hadalkan aan furay ee xagga buugga waxa weeye buugga aan qoray odaygii uu ku saabsan waxaan helay ninka warsangeliye la yiraahdo Maxamuud Muuse Ali ninkaas waddankaas wuxuu joogaa Canada ninka xiriirkiisa waan helay ninka waxaan ku weydiinay xilliyada kamid ah baan wax idin qorqoray garoowe ragii kale waa dhintay buugna meedaan soo saarin ana buuggii qoraya oo guntiga u gaabsaday marka waxaan rabaa wixii aad hayso inaad nagu soo wareejiso oday noogu ahaato guddi buugga soo saartay aynu noqono oo maadaama wixii anagu aan guntiga u gaabsanay inaan qoro inaan buugga kale iyo oo aan isku nooc ahayn oo aan qaarsaxayn meesha ka soo baxan buug tafiqiye tiran oo aynu ku midaysanahay oo adigu noogu tahay oday aan soo saaro si bilaadanka loola hadlo ninkaas sidii wanaagsan baan loola hadlay ninkaasi wax tixgelin arintaas nagama siin waxaan la qoriyay lagu tixgelin abwaannimo lagu tixgelin wax hore oo naga qortay baan lagu tixgelin hadalkii wanaagsanaa ee helnimadu ku jirtay baan lagu tixgelin ninkaasi wuxuu yiraahdaa anigu buug jeebkayga baan qoranayaa Cali Xaadana inaad buug jeebkaaga Cali Xaadana ha qoran anaga Cali Xaadana anaga durjadiisii anaga xilkii abwaannimada Soomaalida u hayna iyo ummadda anaga qorino gacanta ku hayna haddii waxaad haysaa uu jiro nagu soo darso hal buug aan soo saaro oday noogu noqo hadduu nooc kasta oo uu yeesho buuggaasina adigu oday ku ahaw ninkaas way diiday arrintaa wuu diiday waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa buugga ninkaas qoranaya inaanu ahayn buug Cali Xaadan buug naga turjumaya buugaanu idmanay Soomaalidu 30 sanadood waxay ku caan baxday fawdo iyo biloqo iyadoo markii hore Soomaalidu ay ahayn dad aad u ducaysan haddana 30 sanadood sibir walba ilaa qof gurigiisa dhisan lagu qabsanayo bagacadiisa lagu qabsanayo dadkiisa lagu qabsanayo imika waxay maraysaa in taariikhdii iyo suugaantii dadku ha wada lahaado way ka dhaxaysaa laakiin duriyadii nin arintii mas'uulka ah markuu gacanta ku hayo nin kale uu yiri gacantana ku hayay igala mid noqo u diido yiraahda adigu waxba ka siimayo waa bulcad suugaameed buuggaas ninkaasi uu yiri waan soo saaraya magaciisa waxa loo yaqaan gabal qariye waxa loo yaqaan caar waxa la yiraahdaa waa nin warsangeliya waxa la yiraahdaa mar saddexaad afraad baan ku celinayaa waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa ninka la yiraahdo Maxamuud Muuse Ali dadka qaar caar uu yaqaan qaar gabal qariye qaar waa laga yaabaa in magac kale u yaqaan buugga uu qoriyaa ma aha mid Cali Xaadan ka turjumaya أنا إن على هذا أنا حلكي ومدة الصومالية ذو هيا عرنتي يوم ألف المدي أنا تاريخي وضيق هيا أنا بوجي وتفقيه ترنق عندك هيا حلي دون ولا جاي أنا صبحه وحولها بوجا حلي كار وحنرب بحين هيا لقتنكي على الروح لقتنكي على الروح لما قصيه ما هبوج وضيق كتجمية talabaad waxaan u sheegay ummadda Soomaaliyeed buugga boqolkiiba 50 waxa ku qoran odaygii ma leh waa been abuur qof kasto meel marayaba waa kaga shaakirsaday gabayaan odaygii tirin iyo taariikh aan lahayn waxaan ku soo ururinayaa anigu Ashaba Ahmed Cali Xaadan Soomaalida inta taqaana way taqaana inta kale waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka hadlayo waa taariikh ummadda Soomaaliyeed iyo suugaan dadku ma kala laha laakiin waxaan ka hadlayaa wixii khaldan in la akhriyo وشمال أي هرسكتو بوق النكاس قريو ما هبوق على هذا كتجمية أنا ويد مني أنا شقة كلنا هاي وأول ضبرلان دعي أنت أسنو مطالو بوق أنا قعدت كوايا يعني من شراء ودن كاس شرمكة واتهي أول صدق سابا بوق أوصل صارنا بوق جاس حلي جاس تمنص النضاد كور قبل دقائق الشغل هذا ينون عكسنا وضدك كتشوك كوارت كلها لا نهاي gabadhaas buuga way isku daday inay soo saarto laakiin waa u suuroobi waayay hadda waxaan ka warhayaa inuu xitaa ninkaasi dib u la xiriiray oo yiri dadkii waxaan lahaaba qoranayay aan baashi dib u abaabul ma suuroobiso buugaanu hayno
ciddii buuggaa danaynaysaa waxaan leenahay ha ka soo mid noqoto hadday wax saxan haysaa ku soo darto laakiin waxaan leenahay 2 buug iyo 3 buug iyo buugaag 100% forgery tahay iyo buugaagan cid u idman anagu xeerka suugaanta iyo Soomaalida iyo dhaqanka midna kuma jirto waxa weeye waxaan shaqo ku lahayn waa wax ka baxsan dhaqanka iyo suugaanta iyo ehelnimada iyo waxa Soomaalidu dariiqada ay marjid halkaas ku balaasan waa taabwan inanka buugga qorayo ma weydiisan sababta isagu u qorayo maadaama idinkii aad joogtaan xaadir tihiin ana u sheegtay idinka buugga qoraysaan ها si wanaagsan ma wada hadlay wuxuu igu yiri buuggaas waqti aad u leeyahay baan ururinayay buu yiri marka maanta ma aqbalayo inaan wax idinka siiyo si wuxuu noola hadlayaan waa faahay war buuggan hadaad waqti dheer qoraysay hadaad waqti yar qoraysay kuma dhabaystira 10 sano ka hor baad anaga wax naga qorqoratay 10 sano wax xilli aad u dheer dadkii baa maray xilligaas marka anaga maanta isu taagnay daliya dibad anaga ah duriyadii anaga xilkii hayna anaga wixii hayna anaga dhul badan u maray dadku waxba iska qorqortaan anaga wixii ka ruu sheegayna baan qornaa naga mid noqon kulli waxaad haysana aan kula eegno wixii foojiri aan ka tuuro wixii saxda qaadan oday noogu noqo noogu noqo nin badan ku soo jiray noqo ninkaasi wax karaama iyo wax tixgelina iyo wax sharaf midna naga masii waxaan u sheegaynaa inaan buugga lahayn inaan ku caruuxayn inaan shaqo ku lahayn buugga caar qoranayo buugga oo qoranayo gabal qari waxaba isku nin baa leeyahay buugga oo qoranayo maxamuud muuse cali nin leeyahay waxna quseeye ma waa burcad suugaameed waa burcad taariikheed idii hareeraha ka taagan la rabay laga bilaqasho waa dhaqanka sodonkiisa noo iska hirgalay Soomaaliya guri dhisan وسقاش سنوم نكيل ها يدريد يجوا نكوه بسنة يلهان وأنا وحي Soomaaliya ka gaashan qaaday iyo fududii dawladlaantii oo wax ku saabsan halkaas ka gudbiya waa tahay tan kale saddex gabadh oo gaagaaban bakiiq qaadan ayaan soo qaadanaa aan jeclahay inaan kaga qayb galo booqashadan TV-ga caalamiga Munamandeeq mid waxa weeyaan waxa jacaylka حاجة شعيلك أمورها شعيلك رجع الله يمرك شعيلك دتكو هيسة شعيلك دتكو قادة هي هيسة أنا وعكون في قبل قاعد شعيلك كجوه في مركي هراء هي تقدر كشيء تبغى منك راجو قاصلا دان قبل يقول كوب كيار مكاكين أما نقول شعيل يحنون كجوه بارين أفكم بطل هذا تحو عرميشان مركا هيسة وحكجوه في قبل يقول كبر برية شعيل مركا دت شعيل يو شيء جيا أنا وحاب ما شعلاني ayaan inuu jacaylku gabayga ku wanaagsan yahay dadka baray marka gabadhuna gabadheenu gaaleeda bay marka wuxuu yiri gabaygii wuxuu ahaa jacaylka haddana ka soo qaato irdiisa gabay baa naxwaa lagu urushay ishqiga mar baatixaa qaar lagu amaanayo khiyaaraha saawaha bay ku intifaacdaa buu inaan yahay indhuhu waxay rabaan adiga weeyaan ma ogolayaan qolay inay ku arki waayaan waxa taayiraanay midaan aad u caashqay ima ogidi waayaan baa ugu aloolaaye haynkirna ila daadahay afka u dhicin jacaylku iskambi isku diraa labadii isjecel eedku kala geeya kana ilaali tuulaafu eedaya jirbu arin farax leh deemiye waxaan idinka daaray awlaad dhalana iyo caruur eebeysiyay aqbal guur xaal iyo dhismaan dib uga inaagu ajalku galaataan sida oo amaanaha waarami xoog leh iyo xanuun la aadmigay adba maqashay boodhari inuu aakhiro u diray leelana wiilka dhigay waa dugsoon tahay sidii ay rageel oo ilmaha laga waleynayo waa umaladiisi warkan aan ku akhriyo martina lama ileeyo nafku waa ma baahan arin farax leh deemiyay waxaan idinka daaray awlaad dhalana iyo caruur eebeysiyay aqbal guur xaal iyo dhismaan dib uga inaagu إلى نقال ينتيونك عيدة هبلها إني جاجا إن أدير تاجرو أفكم بي وذا كان هوين وجاي يموق اسمه اللي هو وحنا أقصله هين منارك الواحد مرة هو عين الدهب يدري رو يبتي أبي يهيو وحتى يمدان إن لهين جس ليجبو عشان فرح له دايما وحنا اللي كده على إن أولاد دلنا يعرون إيه بينسي أقبل قول حالي الاسمان تبوا جاين أبو أغارك أبوه هذا واضح الرب كرشان لو بدي هاي عرضوا كلا الوقت رأي يبصير مودي وجوجي أبى وجود دقي الليل حنا
miraalaheeday ku onkado jiray oo ubaxa geedaha bixiyo abaq oo ubaxa geedaha baxay iyo abaq laalaado oo iskood midhow baxay aayar guranaysa saxan saxa udgoon iyo xareed aladka ceegaagta aqlab daryaalo gudaha ila xid loo gooyay aqlab daryaalaha hadda loo garanayaan ma may wala garanayaan aqlab daryaalaha oo gudaha ila xid loo gooyay afka hore kabad loogu xidhay agabna hoos yaalo ay ardaayo u dhiseen wadabadha dheer lib oo dawlada ku xidhan la ashqaarayso inaan ka aroosaan rabaa uga yahay arrin farax leh taymiya waxa ay ka daalaynaa walaal Abdallah iyo carruur ee beenisi aqbal goor xalaal iyo dhismaan dib uga inaa gabigaas gabi jacayl abu haado ina xasan ka xusuusta xagga dhaqanka Soomaalida waa tii la burburiyay xagga diinta xagga dhaqanka xagga wax walba waxay noo noolay ma jiro haddana ilaahay waxay nagu soo celin wixii ba leenaga baabiin marka dad baa dibadaha u baxay qurbaha dadkii qurbaha u baxay waa soo heesayaan dad madax ruuban oo heesaya wixii heesna ma sheekana ma oo adiyaabasa dad wax ka yaabi ha gabaygi baa ka daran lebiski baa ka daran meel walba marka wuxuu leeyahay hideeni waa lagu dhacay dheemanta ahaa in yaro ilaaha dhawray oo dhalada mooyaan dhaqankeeni fiicnaa dadkii dhoofay baa dilay daba faranji bay door bideen dheef macunayaal buu dad ugato diinteeni bay dhan uga leexdeen sharafteeni bay dhaawaceen kana dhaqaaqeen dhayal uga talaabsaday sharciga dhadibadiisi dharka ay sitaan waa mid aan dheeha shalahayn dhajisiyo surwaal dhuursan iyo garan yar oo dhaamin intay dhag isku siiyeen timihii dhowr la soo hadhay iyagoo dhurwaa moodid bay soo dhuftanayaan suugaantii bay dhoorogeen oo dhameeyeen gabaygii dhantaale iyo xigmadeen ugu dhehnaa fanna dhimayay waa bari haddaad dheeb u taqaanabu kuwa dhibirahoo qaawan oo madaxyo dhuudhuuban ayuunbaa murtidii dhuunta jalaylana dhagaystaabu dhadhanna laguma ogaa waxa kanay dhacda la hayaan anna waa la dhagaystay ugu dhawaaqan haddaase waxay reer Yurub wuxuu doonayaa dhacay maska dhumucda weyn iyo abees dhumatada jiifta Maraykaan dhukaal iyo sunbu soo dhigaya ma dhulumi kartaan bal wuxuu soo dhameystiray dadkuna dhaabad lagu sooco iyo dhalasha oo gaar wadina diinta iyo xaq oo dhaayaheena lama dhaafi karo ruux iblis dhumiyay mooyaane ismeena waa ceeb xishood laga dhaxsibta kulay waalid dowrsani intuu dhigama tuureen dhalaan meher ku yimid waa inay dhagan nuglaadaan qaar dhuman maayaan waxa loo dhawaan jirin dhalaan meher ku yimid waa inay dhagan nuglaadaan qaar dhuman maayaan waxa loo dhawaan jirin dhalinyarada moobeelada iyo dhalada eegaysa waa dhagar nasaare yuhuudina dhex keeneen waa dhooylaan weerarka dhalada moodeen dhalanteed ka yimid reer galbeed ama la soo dhiibay dhulka inuu fasaqo waa inaan dhugu lahaanagu umaduna dhibaatada jirtay dhooban markaan haddaydan ka dhiidhiin wixii dhaxalaha ay reebto baan dhowr koonka baalihii dhaabay baa jiray ilaahaas gabaygaasna xagga dhaqanka oo adkaasi xagga dhaqanka taado waxa weeye dadkii dad baa dhalay inantii ama iskuul ha dhigato ama imtixaan kala ha dhigatay xaafad bay ka soo tooshay inankii waa la mid dadaan iloo ima bay labiskoodii soo xidhanayaan oo ayna aragba ayna isku wadan ahayn meel ka arkeen bay dhaqankoodii timii bay sidii soo xiranayaan aabi adduuna ka yiraahdo war sidan u xiran meys oo maqas qaato qaar ka jaro oo dilo oo gabadhii hooyada ay qaar u qaato tanaba baxsada u labisatay qaar kugu dhacday waa si dawacada u soconaysaa oo waxba isbedel la dadkii dhaqankii dhalinyaradu waa la celin lahaa dadkii baan muraad ka lahayn dhalado wixii ba iska oraydo wixii ba iska fududaadeen ka dhaqankaasan ka hadlay xagga waxaan ku xijinaa gabay xagga diinta ah yaa wadaha ilaahay ayuu ahaa marka nageeyaan ku su'aal qabsanay abwaanka Soomaaliyeed abwaan nageey akana waa ka salaamay abwaan nageey oday Soomaaliyeed wuxuu nageey waa diyadan Allahi untay ba iska labu sagaarada noo fidshay aan ku istirixnabu uduga roobka iyo nimcuna waa saaqa yana waa astaan wuxuu yiri nageey waa diyadan Allahi untay ba iska leeyahay sagaarada noo fidshay aan ku istirixnaa uduga roobka iyo nimcuna waa saaqa astaan weeye buurahan u mudan aradku miisaan inna waa bad jiftiyo waxay ilaa yaabtaabu samadaan isaga askumay oogada sare wadba saa u haysto haya ya maraha asaar isaga haw yiri sida wada arkaysan awoodiisa mooyee ma jira axad shaqeeya
isagaa muraah xukuma afay iyo khayr oo gawaaga iyo markuu leelku yahay aakhir aminkay shamsada noo dhacdeen nalagu eedaamo iftiinkii iyo madowga isbedelay amarkii weeyaan haddii la taagay iyo markii aadan la abuuray iminkaynu joogin iyo abidkeed siday ahaan doonto wixii uu iraadeeyey baa lagu adeegaa imtixaanna weeye oo dar hore oo eeday baa badan ruuxiisay iimaan lamaan la ashqaraarayn axaadiistii nebigeenna iyo aayadaha diinka axkaamta iyo shareecada qofkii ku ismanaan waaya ama aan ayidin waa ibliis wuxuu adeecaabu isna maqalayo jahannabo ugu yabooha allow naga salaamee naftay ehel wadaagaan maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa bulsho weynta buugga aan uga digay inay iska ilaaliyaan waxaan laga qoriyo burcad suugaameed anaa buugga qorayo nageeya qoriyo buugga uu qorayo ninka la yiraahdo maxamuud muuse cali gabal qariye caare magacyo badan buu leeyahay ninkaas noo odayo madaxa buu ahaa buugga uu ku yarsan barraxday madaxa buu ahaa waxaan maqlay ibliiska 7 magac ku lahaay ninkaas madaxa buu ahaa buugga uu ku yar marka waxaad ugu baaqaysaa buugga inaan uga digtid buugga inaan uga digo wax kasta oo burcadnimo baan uga digayaa ama buug dadkii lahaa qoranayo waxaan saxayay oo cid meel la tagtay shiijeed ha ahaat wax kasta midnimada Soomaaliyeedna hal la ilaaliyo dantana hal la ilaaliyo nabadana hal lagu dadaalo wata xagga abwaanada xagga muslimadana meel kasta la jooga hal leeyo dadka Ilaahay baa la xisaabtamay وهذا داوديال waxaa intaan ugu eeg barnaamijkeeni mandeeq iyo maxaa cusub oo maanta martii ugu ahaa abwaankeeni weynaa abwaan shabac anaka iyo bahda TV-ga Sam News TV oo isku duuban waxaan kaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh